السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود أوادا داوديال رمضان مبارك بركوين كربي كوركينا هاته وبرنامج آنو مقعدرني taxanaha noloshii saxaabada kaas oo ku soo qaadan doono hal saxaabi. doonaa noloshii saxaabigii jaliilka ahaa Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas hooyadii waqtiga ay soo islaamaysay waxa uu ahaa da'diisu mid ay aad u yar tahay. qalbigiisa waxa ay ka buuxisay jeclaanshaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam. nabiga ayuu jeclaaday isagoo aan arag markii looga sheekeeyay akhlaaq wanaagii iyo astaamihii wanaagsanaa uu lahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam. dhegtu inay wax jeclaataa laga yaabaa mararka qaar inta ayna ishu wax arag, maxaa yeelay maqalkiisa aad kuugu batay wanaagiisa lagaga sheekeeyay. Anas wax badan ayuu rajaynayay inuu la kulmo rasuulka sallallahu alayhi wasallam makana uu tago, ama inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam socdaal iyo iftihaan ugu yimaado magaaladii waqtiga ku noolaa Anas bin Malik oo ahayd Madiinatul Munawwara, si uu la kulankiisa ugu liibaano aragtiisana ugu ilqowsado. waqti aan sidaa u fogeyn waxaa soo dhowaatay waqtigii farxadda iyo soo dhoweynta rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkii Abubakar Siddiiq. indhihii waxa ay ku foogan yihiin, qalbiyadiina ayna hilmaamin dariiqii ay soo marayeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkii. wadada ayaa indhihii qafaalatay. dhalinyaradu waxa ay bilaabeen in ay subax walba ku faafiyaan magaalada. nebigii ayaa yimaaday. Anas waxa uu ahaa mid u ordaya aragtida rasuulka sallallahu alayhi wasallam. farxad ayaa qalbigiisa buuxisay. waxa uu dhex cararayay carruurta, laakiin waxba ma uusan arkaynin. cadceedu marka ay kulaato unbay soo noqonayeen, iyada oo markaa wejidooda muruga ay ka muuqato, isla markaana la leeyahay beri ayay soo gelayaan. subaxyada ka mida subaxaas oo aad u iftiimayay, rag ayaa dhawaaqay. waxa ayna lahaayeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkii waxa ay ku soo dhowaadeen magaaladii Madiinatul Munawwara. raggii waxa ay gudagaleen dariiqii barakaysnaa kaasoo ay soo mariyeen nebiyul hudaa warraxma iyo saaxiibkii, si loo soo dhoweeyo nebiga sallallahu alayhi wasallam ugana difaacaan cadowga. seefahoogii ayay garbaha ku qaateen iyaga oo u tartamaya aragtida nebiga sallallahu alayhi wasallam. kooxna u socda. raggaa waxaa dhex yaacayay carruurtii yaryareed, kuwaasoo qalbiyadoodu ay buux dhaafisay farxadi. carruurta waxaa ka mid ahaa Anas bin Malik al-Ansaari radiyallahu anhu. rasuulka ayaa soo qaabilay saaxiibkii, waxa ayna dhex socdeen carruurtii iyo jamaacooyinkii faraha badnaa iyagoo gaadiidkooga saaran. maalintaas waxay ahayd maalin aad u weyn. markii uu nebigu yimaaday Madiina isagoo oo maalmo badan joogin, ayaa waxaa u timaaday Al-Qumaythaa bintu Qumayxa, Anas hooyadii. isagoo Anas hor cararaya, waqtigaa waa u yaraa. nebiga ayay salaantay sallallahu alayhi wasallam. waxa ayna ku tirid, rasuulkii ilaahayow, qof ma uusan hadhin reer Madiina ilaa hadiyad ayuu kuu keenay. aniguse hadiyad kuuma hayo, ee inankan yar qaado, hana kuu shaqeeyo ilaa waqtigaa doonto. rasuulku sallallahu alayhi wasallam aad ayuu ugu farxay. weji furfuran ayuu ku soo dhoweeyey.
maalintaa waxa uu ahaa cumrigiisu 10 sano. madaxa ayuu gacantii shariifka ahayd kaga masaxay, ehelkiisa ayuuna ku daray. Anas waxa uu ahaa mid ku liibaanay khidmadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. maalintaa wixii ka dambeeyey waxa uu ahaa mid ku soo kora nebiga hoostiisa ilaa nebigu rabbigii kala kulmo. waxa uu la noolaa 10 sano oo uu ka cabiyay hadyiga nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxa uu ka buuxiyay laabtiisa xadiiskii rasuulka. waxa uuna aqoonsaday axwaashii nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxa uu u yaqaanay si uuna qofna u aqoonin rasuulka. Anas waxa uu dhahay, nebigu wuxuu ahaa midka ugu akhlaaq wanaagsan, laab ahaanna midka ugu waasacsan, xanaaneyn ahaanna midka ugu naxariis badan. maalin ayuu ii diray hawl, waxaana arkay carruur ciyaaraysa. ana dhinacayga ayaan ciyaartii ka qabsaday. waxa aan dareemay qof maradayda qabanaya, isla markaana waan jaleecay. waxa uu la noqday rasuulkii sallallahu calayhi wasallam. waxauna igu dhahay, Anas yarow, meeshii aan kuu diray ma aaday? aad ayaan u naxay. waxaana dhahay, haa rasuulkii ilaahayow, hadda ayaan qabanayaa. rasuulku muu ahayn mid canaanta, dilna iska baddaa hadalkiis. rasuulku waxa uu ugu yeeri jiray Anas yarow, mararka qaarna wuxuu odhan jiray, yaa bunaya wiilkaygiiyow, isagoo u dhibrinaya una naxariisanaya, maxabaya kalgacaylna u muujinaya. nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku shubiyay qalbigiisa nasteexooyin, wacdi iyo waano, ilaa Anas bin Maalik qalbigiisu noqday mid ay ka soo burqato wanaag iyo khayr. sallallahu calayhi wasallam waa u duceeyay Anas bin Maalik hal mar in ka badan. ducooyinka ugu duceeyay waxaa ka mid ahaa, allaahuma arsiqhu maalan wa awlaadan wa baarik lahu. ilaahayow maal badan sii, awlaad badan sii, una barakee. Anas bin Maalik waxa uu ahaa ansaar ragga ugu taajirsan, uguna awlaada badan. waxa uuna noolaa 1 qarni oo kaamila. xanuunkii geeriis markii uu qabtay waxa uu ahaa mid ku celceliyay laa ilaaha ila allah ilaa uu ku dhintay. Anas ayay u sugnaatay khayr iyo wanaag radiyallahu canhu. intaas ayaan ku soo koobi doonaa noloshiisii quruxda badnayd. haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe saar. haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsantahay wakhtiga qiimaha badan eed ku bixisay siina faafii furiyoga.